calaamadahani waxay akidayaan oo xoojinayaan qofkii kaa tagay xabiibkii kaa tagay ee noloshaada ka rartay ee dhabarka ku jeediyay inuusan soo noqonayn si kasta aad u jeclayd iyo si kastoo u wanaagsanaa kana soo noqon mayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha barakaysan oo ku soo dhowaada fariin muhiima. fariintaani waxaan hubaa in naftaada iyo noloshaada ay badbaadinayso, waayo waxaa jira dad xiriirka ay lahaayeen ee qofka la lahaayeen, ama xiriir guur ha ahaada ama xiriir kale ha ahaadee, markii qofkaasi uu xiriirka ka baxo qofkaani inuu meel fariisto oo uu murugoodo uu yiraahdo lacala maalin inuu kuu soo noqdaa laga yaabaaye nolol kale iyo mustaqbal kale ha samaysan. waxaan kuu sheegayaa marka gabar yahay ama wiil yahow, qofkaasi kaa tegay dhaqamadan haddaad ku aragtid calaamadaha kan oo saddex ah, waxaad ogaataa qofkaasi inuusan kuu soo noqonayn. marka khiyaaliga iyo wahmiga aad noloshaada ku abuurtay intaad ka saartid, noloshaada raaxayso. dhammaa wixii hore, taariikhdii hore waa dhammaatay. cashar ka qaado, meel laha u fadhiisan. lacalla uu soo noqonaya aad ku haysid ka bax, lacalla inuusan soo noqon baa laga yaabaa. bal naftaada waxaad u sheegtaa in qofkaasi la-aantiisa ay noloshaadu qurux badan tahay. naftaada ka dhaadhici. waxaani waa ka dhaadhicin waya, waa qalbigaada waxaad ka dhaadhicisid. haddaad ka dhaadhicisid qalbigaada qofkaa kaa tegay, ninkaa ama wiilkaa kaa tegay, ama aad isfurteen ama xiriirka kaaga baxay, hadduusan kuu soo noqon inaadan horumar samayn karin, qalbigaada asaa ka dhaadhicisid, sidaa unbuu ku noolaanaya. tillaabana ma qaadi kartid. qofkii kalena noloshiisu samaystay, naag buu guursaday, caruur buu dhalay, ganacsi buu samaystay, wuu safray, howlihiisuu ku jiraaba, adiga maba ku yaqaanaba inaad soo martay iyo in kale maba kala ogaba. waxaad meel ugu fadhidaa marka iska jir arrimaha, khaasatan gabdhahan la hadlaya oo arrintaan aada ugu badan tahay. wuu ii soo noqonaya. gabdho badan waxay la soo wadaagayaan midka iga tegay ama furay muxuu iigu soo noqdaa, maxaan sameeya? qofka hadduu wanaagsanaa oo rajo wanaagsanay aad ka qabtid, calaamadahan laakiinse aadan ku arkin, lacala laga yaabaa inuu soo noqdo insha allahu tacaala haddaan taada ku raacno. laakiin halkan waxaan ka hadlayaa 3 calaamadood oo akidaya 100% ama 95% inuusan kaa soo noqonayn. shartiisii khayrkiisii waa la tegay, nolol kala abuura. marka calaamadahani waxay akidayaan oo xoojinayaan qofkii kaa tagay xabiibkii kaa tagay ee noloshaada ka rartay ee dhabarka ku jeediyay inuusan soo noqonayn si kasta aad u jeclayd iyo si kastoo u wanaagsanaa kana soo noqon mayo, ee danahaada iyo noloshaada ka raaco. calaamada koowaad waxa weeye ee qofkaani haddaad ku aragtid uu yahay qof noloshiisi raacday, khalaas in aad aragtid qofkaanoo noloshiisi si caadiya oo dabiiciya u wata. tusaale, waa guursaday, ganacsi buu samaystay, caruur buu dhalay, noloshiisii caadiga ahayd dabiicaha si dabiiciya u wataayo noloshiisu raacday, ma soo noqonaya kan. wixii soo maray ee adigu aad ka mid ahayd wuxuu ka dhigay wax tegay, wax la soo maray, cashar tegay, arrin dhammaatay, arrin maalin un ay ahayd kadibna ay khalaas noqotay buu ka dhigay. bas meel kuuma fadhiyo, ma murugaysna, waa faraxsan yahay. gabar buu guursaday, reer buu samaystay, xagguu ka dhacay, ehelkiisii buu la joogaa, noloshiisa caadiya wataa, waa qoslayaa, waxba kaba dhiman, alxamdulilaahi buu ku hayaa, arrintiisu ku dul saaranta. kaa kuuma soo noqonayo. qalbigaada ka jartaas, qalbigaada arrintaa ka jar, kaa kuuma soo noqonayo. anaa kuu sheegayo walaa. keliya wixii aad soo wada qaadateen tijaabo iyo cashar bay u tahay oo keliya, marxalad dhammaatay u tahay oo keliya ka caafimaad. bas adiguse weli meeshaa fadhida, waa muraaqabayne. marku soo wacay meesed ma kuu soo diray, taleefonkayga soo dhacaba ma asagiibaa, maalin buu mayd hadal hayi ka waran kii may hadal hay. dadkaad weydiinaysaa, meeluhu joogaad warwareegaysaa, waad murugaysan tahay, cuntadii waa diiday, waxbarashadii waad ka haratay, halkaanaad gunuunacaysaa, asagiina noloshiisii wataa oo raaxaysanaya. haddii marka calaamada ku aragtid, khalaas waa dhammaatay arrinta. adiga marka fursadaha ku soo maraya ha iska dayacin, ee fursadaada ka faa'iidayso sida asagaba fursadiisa uga faa'iidaystay. calaamadu waa taas. calaamada labaad waxa weeye wuxuu gooyey wax kasta oo xiriir oo idinka dhexeeyey si kaba dambaysa, waana fogaaday. yacni wax kasta oo markii hore isku kiin hayo dhan wuu jaray, khalaas. wicid, xiriirid, salaamid, howlo kale waa jaray, khalaas. waa kala go'deen, kaanamaa weligiin inanaysa aqoon. mar hadday taa timaadana qofkaasi waa tegay, waa ku daayey. bas ku daah, noloshaada abuuro walaal.
noloshaada badbaadsan baan kaa kari lahaa noloshaada badbaadso kaasi waa ku daayay saa rabtay u jeclow saa raba ku jeclaan jiray wixii rabaa idin soo dhex mareen khalaas arrinta waa dhamaatay iskoolkii hoose aad waagi dhigan jirtay aad ka soo baxday miyaa hadda dib ugu noqonay maamay saasoo kale waa jaamacadaad dhamaysay oo kale waa arrintii waa dhamaatay waa ku soo martay waa dhamaatay waa laga bax fasalkaad dhigan jirtay maya arrin nolosha waa dhamaatay meeshaad ku noolaan jirto aad ka guurtay kala waay nolosha waa dhamaatay waalidka oo dhintay oo aan soo noqonayn kala la mid tahay arrintu waa dhamaatay naftaada ka dhaadhici arrintaas wuu soo noqon doonaa halkaanaan u joogaa aniga waa murugaysana wuu i dhibaateeyey xaggii ka dhacda ha ku hayne bas khalaas waayihii ku soo maray bas cashar ka qaado calaamad waa taas wax kasta oo asaga isku keenaya waagii hore wuu jaray ninkaan maxaa meel ugu fadhidaa marka asba kuma fadhiye intaha hada zamankaa waa dhammaaday calaamada saddexaad ugu dambaysa waxaa weeye qofkaani qoraal ama video ama waxyaalo kale story ha noqoto oo bariisha bulshada soo dhigaya oo adiga si dadban kugu tacalluqa xataa ba ahaatee ma jiro wax adiga cadaawad kugu ah oo qofkan faafinaya ma jirto horaan u sheegay muuqaal qofkan hadaa aragtid inuu kugu mashquulayo oo ceebtaada faafinayo wali uu ku jeceliyo qalbigiisa aad hurinaysaa laakiin qofkan haduu ku iloobay waa bas soo noqonayo muuqaaluu soo dhigaya qoraaluu soo qoraya wax adiga dhaga hadal kugu saabsan aan dhehne ma jira maxana qofkan xataa adiga kuma muraaqabaynayo muuqaalada soo dhigaysid suuriyada soo dhigaysid استاذ soo dhiganaysid qoraal waxaana dhan ma fiirinayo mana raacayo comment kama bixinayo lama tafaaculayo lama falgalayo خلاص qof uusan aqoon oo kale uu kula dhaqmaya خلاص kaasna waa ku daay hadii marka qoraalo iyo muuqaalo iyo arrimo adiga ku khuseeya si dadban ba ha ahaatee walow dadkaada ba ha ahaato wax ka soo horjeeda ba ha faafinaye uusan arintaas samayn ka ku ilow laakiin haddaad aragtiin kugu dhaga hadlayo eraya calaacalo soo qorayo waxay adiga eraya canaana erayo cabasho ah erayo oo adiga lidkuga aad leedahay qofkan xiriirkii hore miyuu yani ka xuma waxyaalo arrimaha nooca ku saabsan wali waa ku dhexnooshay oo ku jeceliyo u raba laakiin hadduu soo waxaasoo dhan samayn oo dantiisa iyo noloshiisa raaco qofka waa kaaga dhamaatay dibna ooma soo noqonayo kani dib ooma soo noqonayo dib ooma soo laabanayo noloshaada samayso noloshaada raaco noloshaada abuuro qof kastana guushiisu waxay ku xiran tahay oo qofka kale kaga guulaysto nolosha waxa weeye in qofkan uu sameeyo ficilo iyo arrimo hadlaya adiga inaad hadasho looma baahna saanaan sameeyay iyo xaggan ka dhac in looma baahna waxa la rabaa ficiladaada iyo horumarkaada iyo farxadaada inay hadasho dadka u gudbiso warka bas intaas la rabaa inaad faantid maanta halkaasaan joogaa ina calaashid saasan laygu sameey ina dhahdid looma baahna waayo bil aadanka waxba kuma taray maanta hadaa calaash waxay ku tarayaan malahan kaliya waxay leeyihiin no worry maxaa kugu dhacay qisa ahaan bay kaaga qaadanayaan wayna kugu weersanayaan laakiin noloshaada markaad guul u samayso horumar samaysid oo aad naftaada ku mashquulshid iyo noloshaada iyo danahaada khaaska iyo cibaadooyinkaada iyo hawlahaada iyo waxbarashadaada marka ku mashquulsho noloshaada guusheeda aad horumarinaysid ayadaa hadlaysa noloshaada markaas qofka kale iyo dadka kale iyo bulshada iyo wixii kugu hareeraysan u sheegaysa inaad guulaysatay inaan lagaa guulaysan adiga marka inaad hadasho looma baahna ee guushaadu ha hadasho dadkana fariinta ha u gudbiso najaaxaadu ha hadlo intaas noloshaada ka dhaadhici oo ku qanac oo aamin arrintaasi waa dhamaatay wixii hore waa dhamaadeen dibna uma soo noqonayaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin rabbiga ayadan xafido muuqaalka inoo la geeraya siina sheer geeraya walaalaha kale la wadaaga seef garayso oo meel dhiga muuqaalkan si aad berri u xasuusatid si aad berri cashar uga qaadatid si aad berri ugu soo noqotid maanta markaad darsi ka qaadatid haddaa qodobada qaar ilowdid seef garayso walaalaha kale la wadaag subscribe na YouTube ka dheh like na nagu taageer waa mahadsantahay barakallahu fiikum